بعد السلام waxaan marka ugu horeyso u mahadcelinayaa xildhibaanada koonfur galbeed ee doortay aad iyo aad u mahadsantihiin iyo intaan dooraninba waxaan kaloo u mahadcelinayaa guddiga doorashooyinka oo shaqo nadiif ah oo cadaalad ah iyo doorasho xor iyo xalaal ah oo intii aan inta joognay aan codsanaynay qabtay ayagana waa u mahadcelinaynaa guddiga doorashooyinka waxaan kaloo u mahadcelinayaa guddoonkii shaqadan qabtay u dhabar adeegay doorashada ayagana waa u mahadcelinayaa waxaan si gooni ah ugu mahadcelinayaa saaxiibadaydii kulligii aan tartanay musharaxiintii doorashada aan ka wada qayb galnay oo ayagana ku qancay natiijadii soo baxday ayagana waa u mahadcelinayaa si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa saaxiibkay walaalkay aadan saransoor oo ahaa ninkii labaad oo isku xigay mudanayaal iyo marwooyin kusimaha madaxweynaha mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh aad iyo aad u mahadsantihiin shaqadii la idiin idmaday oo dastuuriga ahayd oo waajibaadkiina ahayd si xor iyo xalaal ah u gudateen waan kaga mahadcelinayaa maanta waxaa ilaahay mahadiisa ah oo ilaahay uu noogu gargaaray inay maanta koonfur galbeed waajibkii aad lahaydeen aad gudateen madaxweyne daacad ah oo dalkan iyo dadkan u adeegi doona aad doorateen ilaahay idankiisa adinkana aad ila shaqayn doontaan oon ku garab istaagi doono wada shaqayn sidii koonfur galbeed marxaladihii tirada badnaa oon sheegnay ay ku jirtay looga bixin waxaan kaloo sheegayaa nin kasta oo reer koonfur galbeeda waa guulaystay nin laga guulaystay ma leh annaga dhan baa guulaysanay soomaali oo dhan baa guulaysatay koonfur galbeed oo dhan baa guulaysatay musharaxiinta dhan baa wada guulaystay annaga dhan baa guulaysanay ilaahay guul ha noogu dhammeeyo inta hartayna allaha noo dhammaystiro koonfur galbeedna meeshii barwaaqo iyo nabad iyo baraaro noqoto allaha ka dhigo aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan halkan ku dhaarinayaa madaxweynaha koonfur galbeed ee hadda la doortay waxaa igu wallaahi ah igu billaahi ah igu tallaahi ah oo aan magacayga ilaahay uga dhaaranayaa inaan xilkayga u guto si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka dadka iyo diinta dhowrana dastuurka dawlad goboleedka koonfur galbeed kan qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaal wabilaahi tawfiiq